wacan daawade halkan waa xogta qarsoon ku soo dhawaada channelkan muuqaalkani waxaan kaga hadli doonaa waa kuma Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ninka la tilmaamay inuu yahay milkiilaha dawladda ninkan aan siyaasadiisa badankeeda aysan muuqaalkani ayaan daawade ku soo koobi doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channelka ku soo gaaro bartan waa xogta qarsoon magaciiguna waa Yaxya Maxamuud Maxmed daawade waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkani share garayso channelkana subscribe saarto waxaa sii xoogeysanaya khilaafka ka dhashay kiiska sargaalad Ikraan Tahliil Faarax oo ah gabar ka tirsaneyd hay'adda nabad sugidda Soomaaliya oo la sheegay in shabaab ay dishay kiiska gabadhan oo la baayay dhamaadka bishii Juun ayaa khilaaf weyn ka dhaxdhaliyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kadib markii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu sheegay inuu shaqada ka hakiyay agaasima Fahad Yaasiin go'aankaas oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku tilmaamay mid sharci darro ah oo aysan waxba ka jirin ra'iisul wasaaruhu wuxuu si ku meel gaar ah agaasimaha guud ee hay'adda sirdoonka ugu magacaabay Sareeya Guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe haddaba waa kuma Fahad Yaasiin ninka xudunta u ah khilaafkan si rasmi ah looma oga halkuu ku dhashay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir balse waxay baasabooradiisa muujinayaan inuu ku dhashay magaalada Mandheera ee dalka Kenya bishii Luulyo 1978 wax badan lagama oga noloshiisa hore iyo barbaarintiisa caruurnimo waxaase la ogyahay inuu ku noolaaday magaalooyinka Muqdisho iyo Balad Xaabo si banaanyaal ah weli Fahad uma sheekeen waxbarashadiisa laakiin dadka yaqaan waxa ay warbaahintu sheegeen inuu waxbarasho u tagay dalka Yemen kadibna uu dib ugu soo noqday Soomaaliya halkaas oo uu kala jaan qaaday urur diimeedyadii ka jiray Soomaaliya waxaa sidoo kale jira warar sheegaya inuu wax ku soo bartay dalka Pakistan sida lagu qoray macadka Mareykanka ee laga leeyahay The American Enterprise Institute laakiin si madax bannaan arrintaas looma xaqiijin karo ururkii Itixaad ee gobolka Gadow dad kala duwan waxay warbaahintu sheegeen in Fahad uu ka mid ahaa dhalinyaradii ku biirtay xarakooyinkii diimeed ee si weyn ugu sii faafay Soomaaliya sagaashameeyadii waxaa la rumaysan yahay inuu qayb ka ahaa dhalinyaradii la shaqaynaysay ururkii Itixaad ee gobolka Gadow kula dagaalamay ciidamadii Itoobiya balse ma ayna askari dagaalama sida ay sheegaan dad kala duwan waxaa lagu tilmaamaa in si wanaagsan diinta u bartay kuna adag isagoo si wanaagsan ugu hadla afka Carabiga Fahad iyo shaqadiisa wariyeynimada wuxuu Fahad bilaabay shaqada warbaahinta horaantii 2000 isagoo wax ku qori jiray bogagii caanka ahaa ee sida weyn loo akhrisan jiray ee Somali Talk uu ku jiro wuxuu wax ku qori jiray shirarkii dib u heshiisiinta Soomaalida ee ka socday dalka Kenya siyaasadda iyo hogaamiye kooxeedyadii Soomaaliya wuxuu Fahad wareystay dad caan ah oo ka mid yahay madaxweynihii dawladdii ku meel gaarka ahayd Cabdiqaasim Salaad Xasan oo Muqdisho kula kulmay wuxuu qori jiray maqaalo lagu dhaliili jiray hogaamiye kooxeedyadii Soomaaliya iyo dawladihii ku meel gaarka ahaa ee Cabdiqaasim iyo Cabdullaahi Yuusuf sanadihii 2005 ilaa 2011 Fahad wuxuu wariye u ahaa telefishinka Al Jazeera qaybta Carabiga ee fadhigiisu yahay magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxa uu soo warmi jiray dalalka Geeska Afrika oo Soomaaliya ku jirto waxaa lagu xasuustaa wareysigii uu la yeeshay Sheekh Xasan Turki oo ah hogaamiyihii ururkii Raas Kamboni waxaa sidoo kale uu wareystay hogaamiyaal ka tirsan Al-Shabaab qiyaastii 2014 ama 2015 ayuu ku biiray xarunta daraasaadka iyo cilmi baarista ee Jazeera taas oo noqotay mar inuu ka soo galo siyaasadda Soomaaliya sidee ayuu siyaasadda Soomaaliya ku soo galay Fahad wuxuu markii ugu horeysay si toos ah loogu arkay siyaasadda xilli uu socday doorashada Soomaaliya 2012 waxaa la sheegay inuu qayb ka ahaa kooxdii ololaha doorasho musharax Xasan Sheekh Maxamuud oo markii dambe ku guuleystay doorashada waxaana loo magacaabay Fahad Yaasiin inuu noqdo wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee xukuumaddii Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke xilkaas oo uu iska diiday markii dambe waxa uu sanadkii 2016 hormuud u noqday ololaha doorasho madaxweynenimo ee madaxweynaha hadda xilka haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib doorashadii madaxweynaha Farmaajo wuxuu Fahad noqday agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya hore intuusan noqon madaxa hay'adda sirdoonka oo markii hore uu ka noqday agaasima ku-xigeen waxaa lagu tiriyaa inuu yahay shakhsiga ugu saameynta badan dawladda madaxweynaha Farmaajo saameyn ballaaran oo ku leh go'aanada iyo tallaabooyinka siyaasadeed ee madaxweynaha waa lagu kala qaybsan yahay kaalinta uu ku leeyahay dawladda dadka qaar baa aad u ammaan halka qaar kalena ay ku dhaliilaan Dr. Ibrahim Faarax Bursuud oo ka faalooda arrimaha Soomaaliya wuxuu ku tilmaamay in Fahad wax weyn ku kordhiyay dawladnimada Soomaaliya wax kasta oo laga tabanayo iyo wax kasta oo lagu tuhunsan yahayba waxaa jirta arrin aan dood ka taagnayn oo ah inuu yahay nin hayadeed oo karti badan
wuxuu sameeyey xoghayntii ugu horreysay ee madaxtooyada Soomaaliya sida xoghayn la yaqaan u shaqeysa tan iyo burburkii iyo taliska sirdoon siduu u habeeyay tan intii uu ku biiray ayuu yidhi siyaasiga. Laakiin Professor Cabdi Ismaaciil Samatar lama dhacsana habfikirkii dhaqanka siyaasadeed ee Fahad. Intaan anigu ka aqaan, Fahad ma ahan qof garan kara inuu arko waxa ummadda oo dhan u dan ah. Wuxuu arki karaa dowladnimada inay qabyaaladi ku dhisan tahay. Qofku ugu fariidsan ma raadiyo ee kan isaga wadi kara ama uu wadan kara ayuu raadsadaa. Xagga dambe qofkii ka maamulaya dowladda ayuu soo arkaa. waa taas sababta loo yiri waa milkiilaha dowladda ayuu yiri Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo la kulmay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir sanadkii 2012 wuxuu bilaabay inuu door ku yeesho siyaasadda Soomaaliya iyo sidoo la sheegay inuu isticmaalayo lacag ka timid dalka Qatar iyo inuu ku gato codadka xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ilaa iyo dhawaan waxa uu Fahad mid leh laakiin kaalin ay Qatar u isticmaasho siyaasadda Soomaaliya isagoo aan muuqanin taasoo gaarsiisay heerka guusha siyaasadeed uu ku talaabay. Waxaa sidaas lagu qoray macadka Mareykanka laga leeyahay ee American Enterprise Institute. dabeecadaha gaarka ee Fahad waa nin isqariya oo aan lagu arkin fagaarayaasha isla markaana ka soo muuqan warbaahinta wixii ka dambeeyay doorashadii madaxweyne Xasan ee 2012 ma jiro sabarey muuqaalo badan oo laga qaaday muddadaas taasoo astaan u ah inuusan doonayn in laga helo macluumaad la xiriira shaqadiisa iyo shakhsiyadiisaba. Ma laha bog rasmi ah oo lagu yaqaan oo ka furan baraha bulshada. waxaa lagu sheegaa inuu yahay nin aad loo ilaaliyo oo aan si sahlan lagu arki karin. intaa waxa uu weeliyay inuu ku adag yahay go'aamadiisa siyaasadeed. dadka la kulmay qaarkood oo warbaahinta la hadlay oo ay ka gaabsadeen in magacooda la xuso waxay ku sheegeen nin afgaaban oo hadal dhowrsan misana aad ugu fiirsada hadalka afkiisa ka soo baxaya. hagaag daawad muuqaalkeennii koobnaa waa naga intaas nabadgelyo.